haddii aad isweydiinayso waxa uu uga dhigan yahay dadkiisa tan ka qiyaas qaado doorashooyinkii madaxtinimada ee Egypt 2018 dad 1 milyan tiradoodu kor u dhaaftay ayaa u codeeyay Mohamed Salah doc kale waxa uu safka hore uga jiraa xidigaha malaayiintu jeceshahay daawashadooda ee kubadda cagta heer wuxuuba joogaa loogu yeero boqorka Masar ama fircoonka kubadda cagta ka hadlamayno waayihiisa kubadda cagta oo dhan balse waxaynu muuqan ku dhuganaynaa doc dhiirigelin iyo yididiilo leh oo hayaankiisa kubadda cagtu barayo daayarta Afrika ee sidiisa doonaya inay xidiga adduun noqdaan sheekadiisaas dhiirigelinta ahi waxa ay ka bilaabatay tuulo yar oo la yiraahdo Nakrig oo ku taala gobolka saaran halka ay isaga daraan webiga Nile-ka iyo badda Mediterranean-ka ee dalka Masar hamigiisa kubad jacaylka ee tuuladaas ka bilowday waxa uu horseeday inuu sanadkii 2010 qadaraaskiisii u horeeyay oo rasmi ah u saxiixo koox la yiraahdo Al-Mukawlin taa oo 2 sano kadib uu Yurub uga sii hayaamay inta kadib waxa uu isu maray Basel oo uu 2 sano joogay Chelsea oo amaah ku dirtay 2014 Fiorentina iyo Roma oo uu ku wacdareeyay 2015 ilaa 2017 joog hadaba waa halka meesha waayihiisa xidig adduunnimo ka bilowday oo wacdarihiisii kooxda AS Roma waxa uu sababay inuu sanadkii 2017 ku biiro kooxda Ingiriis ee Liverpool halka uu ka bilowday magaca weyn ee Salah maanta timo weynihii xawaaraha aan cidi gaarin iyo gool dhalinta aan la holin kulansaday ka oo maalmo ka hor ku guuleystay markiisii saddexaad bilada la yiraahdo xidigaha ee BFA taas oo uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 3 jeer ku guuleystay abaalmarintan taariikhda horyaalka Ingiriiska. But also I look at myself now like a guy coming from Egypt and make it to the top level, make a history today, so it's something make me so proud. waxaan isu arkaa ninkaas ka yimi Afrika ee mustawaha sare tiigsaday maantana taariikhdan sameeyay taasi waxay sahlaysaa inaan ku faano ahaanshahayga cunugii tuulada yar ka hayaamay ee cago dhigtay fiqda sare ee masaxyada kubadda cagta intaasna aan uga harin ee taariikhda weyn ka guntaaya waxa uu daayarta kale ee Afrika baraya in la sameyn karo